wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya. Faafahinta warkaas waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Ibrahim. wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin iibka hubka ee bariga Afrika sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. shakhsiyaadka cunaqabataynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyay inuu xubin ka yahay Daacish ee Soomaaliya iyo inuu yahay xubinta ugu firfircoon ee laga soo bilaabo 2020kii hubka sharci darrada ah ka soo dejiyay Puntland sida ay qortay Reuters. waxaa sidoo kale cunaqabataynta la saaray Ciise Maxamuud Yuusuf oo lagu eedeeyay inuu hubka iyo saadka u fududeeyay Al-Shabaab isla markaana uu soo geliyay Puntland hubba. waxaa sidoo kale cunaqabataynta la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo lagu sheegay inuu yahay amiirka Daacish ee Soomaaliya iyo Maxamed Axmed Qaaciye oo la sheegay inuu yahay madaxa amniyaadka. Mareykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argagixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya.